فاطمة بنت رسول بأهاني هذا الله حتى أقول وحكم عملها يشبه عمل المنافقين عملها يشبه عمل المنافقين sidoo kale wadaadka wuxuu sheegay ibn taymiya ayuu wuxuu ku yiri faatima camalkeedii wuxuu shabahaa acmaasha munaafiqiinta wali af carabina wuu ku sheegay af soomaalina wuu ku sheegay wadaadkaas kutubihiisa qofkii eega qofku inuu inta is-indhatiro waxba faa'iida ma leh si daran buu cali bin abi taalib u ahaaneeya hataa culimada muxadisiinta way ka hadleen faadima bintu rasuul buu ahaanay hadallada xataa uu qoray waxaa ka mid ah markii abubakar iyo ayada iyo dhaxalkii nebiga ileen ayadu war kama haynin nebiga inaan la dhaxlayne ayuu wuxuu leeyahay camaluhaa yushbihu camal almunaafiqiin camalkeedu wuxuu u egyahay buu leeyahay camalka munaafiqiinta kale faadima bintu rasuul waxaan rabnay arrintaasi inaan wax kaa weydiino horta hadalkii oo asagii yidhi ibn taymiya maa yidhi faatima عملها يشبه عمل المنافقين أيوه وحول عملها يشبه عمل المنافقين عمل كيدو وحو إيجي هاي بيقول عمل كمنافقين خلاص أفادكم بالتواصل مسألة فدق كصابس فدق وحو كويا لا جزء أفراد لا ولا فرتن يسدح نك الرافضي ابن مطهر أيا وحو كضاضي وحو فاطمة رضي الله عنها أيا أتمد أبو بكر iyadoo dhahayso war wixii aabbahay uu ii hibeeyey fiiri wuxuu ii hibeeyey aabbahay hibe ahaan uu ii siiyey isii kaas maad ii diidaysaa adiga markaa wuxuu markhaatiyay keensatay ummu ayman ay keentay markaa buu yidhi raafidigaa dhahayo warkaas markaasuu abubakar yidhi ummu ayman haweeney waay hal naag waaye markhaati male hal naag markhaati ma gasho markaasay cali keentay zawjkeedii waxa uu yidhi nin markaabuu waxa uu yidhi faatima dabadeed markaasuu wuxuu yidhi waxaa loo diiday wixii aabbaheed uu ka tegey waxay ku dhaaratay inaynan la hadlin haddaan la siinin wixii aabbaheed uu u hibeeyey marna dhaxalkii aabbaheed ayuu sheegaa ibnu taymiya raximahullah marka isagoo ka jawaabaya daamaadkaas iyo balaayaadkaas wujuuh badan buu uga jawaabay marka annaga waxaa naga khuseeya wejka 7 hadda alwajhu saabic ayaa naga khuseeya khulaasada warkiisana waxa uu yahay waa fiirin karaan macnaha waxaan safaxaadka u sheegayo waxaan rabaa si fudud inaad baadida kaa maqan u hesho meeshaas marka waxa uu yidhi أن ما ذكره ابن تيمية ضحي أن ما ذكره إن كان رافضها وحو عن فاطمة كشيغي أمر لا يليق بها وأرن أن فاطمة أقل من ولا يحتج بذلك أرنتان محجيسته إلا رجل جاهل فاطمة وحي رادين يسحق أبه ولو شيغي وحال يري وحي أبها wixii uu ka tago waa sadaqo saasaan nebiga ka maqlay abubakar radiallahu canhu dabcan sidaasuu yidhi marka dhaxal nebi lama dhaxlo markaasay iyadiina waxay ku taagan tahay raafidigaa wuxuu ku ammaanaa marka waxay ku taagan tahay weli inay weydiisato wax ka duwan xukunkii aabbaheed laga maqlay marka taasuu ku ammaanaa oo weliba ay leedahay ma kula hadlaayo adiga iyo saaxibkaaga cumar ayuu ka wadaa sidaasayna marka uga hijrootay wayna dhaaratay marka ibnu taymiya wuxuu leeyahy in arrintaas ammaan looga dhiga faatima ma xujaysto walaa yaxtaju bidalika ilaa rajulun jaahilun yaxsibu wuxuu u malaynaya annahu yamdaxuhaa inuu ammaanayo faatima wahuwa yujarixuhaa laakin waa jarxina fainahu laysa fima dakarahu maa yuujibu algadaba calayhi waxa uu sheegay wax in lagu caroodo keenayo maba ku jira id lam yaxkum ma xukumin low kaana dalika saxiixan warka oo hibada iyo waxaa hadduu xataa saxiix noqo lahay kan hibada sax maba ahane qalad maba xukuminba xataa abubakar leanna hal naagna markhaati ma gasho hal nin iyo hal naagna markhaati ma galaan xataa culummada dhahayso fuqahada ninka haweentiisa oo u markhaati furi karaa culummada qabta xataa
waxay leeyihiin waa in laba haweenoo kale ay la jiraan, ay la socdaan, nin iyo laba naag. qur'aankuna wuxuu sheegaa wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamra'ataani. waa qadiyadda hadday maal tahay. meeshaanna marka hal nin iyo laba naag lama keeninba. marka xukunka xataa abubakar haddii hibada laga soo qaado saxiix waay mar walba. hibada laakiin wax maba jirtaba. haddii marka irhiga iyo dhinacaas la aadana xadiiثuu haystaa. marka wuxuu yidhi id lam yaxkum low kaana dalika صaxiixan ilaa bilxaqi unbuu xukumay alladii laa yaxilu limuslimin an yaxkuma bikhilaafihi. qof muslima xaqaas wax ka duwan inuu xukumo aynan u bannaanayn. waman طalaba qofkii dalbo an yuxkama lahu bigayri xukmi illaahi wa rasuulihi, qofkii dalbo in loo xukumo wax khilaafsan xukunka alle iyo xukunka rasuulka, faqadiba oo xanaaqo waxalafa dhaarto anlaa yukalima alxaakima inuunan la hadlin walaa saaxiba alxaakim inuunan la hadlaynin, lam yakun hada mima yuxmadu calayhi. waxaas wax lagu ammaano ma ahan qofka, walaa mima yudamu bihi alxaakim. xaakimka saa xukumayna wax lagu eedeeya ma aha. ilaa hadda ninkan raafidiga abubakar uu cayna uu ku eedaynaa, faatimana ammaanu uga dhiga. arrintan noocan ammaan ma aha, uma noqonayso faatima. abubakarna qadxi iyo markaa maku noqonayso, iyo jarxi iyo eed ku noqon mayso. wanaxnu naclamu buu yidhi marka shaykhulislaam ogow, annaga waxaan ognahay buu yidhi annamaa yuxkaa can faatima, waxa faadima laga sheegayo iyo wagayrihaa min asaxaabati laga sheegayo min alqawaadixi oo waxyaabaha qadxiga ku ah, dhaawaca ku ah, kathiirun minhaa kadibun, wax badan waaba beenu yidhi. wa bacduhaa kaanuu muta'awiliin, qaarkoodna waxay ahaayeen, qaarkood oo saxaabada iyo laga sheego wax ay ayagu muta'awiliin ku ahaayeenay ku ijtihaadeen. waidaa kaana bacduhaa denban, haddii wax ka mida ay dembi noqotana falaysa alqowmu macsuumiin, asxaabtu macsuumiin ma aha, bal hum maca kownihim wliyaa allah, weliba iyagoo owliyadii alla ah, wa min ahli ljannati ayagoo afiiri, lahum dunuubun ayay leeyihiin yakfiruha allaahu lahum, oo ilaahay dhaafayo. macsuumiin ma aha ilaa moogtahay. fiiri ahlu janno inay yihiinna waa sheegaa, soo ma arkaysa. been qawaadixda lagu eedaynayana in oo lagu sheegayo waxyaabaha lagu dhaawacayo in badan inay been tahayna waa sheegay. ilaa uu yidhi fiiri wadalika alxaakimu yaquul. qadiyadii marka haddaan soo dhoweyno wuxuu leeyahay sheekhu, xaakimkaas wuxuu dhahayaa isaga maalan inamaa maxaa fadeg u sii weysay faatima haddii la dhaho, inamaa amnacu lilaahi, aniga waxaan u mancinaa oon u diidaa lilaah ilaahay dartiis, liannii laa yaxilu lii an aakhuda almaala min mustaxiqihi, inaan maal ka qaado qofkii mudnaa xalaal ay ma aha, faadfacahu aan u dhiibo ilaa gayri mustaxiqihi, aan u dhiibo. wadaalibu sida aad raafidiga oo ku socdana markaan fiirina midka wax dalbaayana oo daalibka ahna yaquulu wuxuu dhahayaa inamaa aqdabu, anigu waxaan u xanaaqaa lixadi alqaliili min almaal, maalka yarkaa ee aniga nasiibkayga ah oo dheeftayda ah darteedaan u caroonaa ayuu leeyahay. alaysa man yadkuru, marka fiiri warkaan fiiriya, alaysa man yadkuru mithla haada can faatima, qofka waxaanoo kale faatimo ka sheegayo, wayajcaluhu min manaaqibihaana ka dhigaaya waxyaabaha lagu ammaano manaaqibteeda, miyuusan ahayn buu yidhi jaahilan. ninka waxaan faatimo manaaqib uu manqaba uga dhigaya muusan jaahil ahayn buu yidhi. awalaysa allaahu qad dama almunaafiqiin, fiiri ilaahay miyuunan ahayn mid munaafiqiinta ku eedeeyey, munaafiqiinta eedeeyey aladiina qaala fiihim uu ka yidhi waminhum man yalmizuka fi الsadaqaat fain ucطuu minhaa raduu wain lam yucطw minhaa idaa hum yaskhatuun. dadkii sidaa laga yidhi soo munaafiqiintii ma aha. faatima munaafiqa ma dhihin, camalkeeda camal munaafiqoo shabahaa ma dhihin, laakiin wuxuu leeyahy warniihow raafidi ah, waxan aad faatimo ku ammaanayso waa qadxi iyo ceebay ku tahay, waayo munaafiqiintii aad u ekaysaynay adiga ayaad iyada u ekaysaynay. waaba waday wuxuu yidhi faman madaxa faatimata, faatimo qofkii ku ammaano
بما فيه ماشي هو بيت القصيد هنا. نعم. فمن مدح فاطمة فاطمة قفك كأمانه بما فيه شبه وكجر أكانشو من هؤلاء كون منافقين تلو أكاذو ألا يكون قادحا فيها ميونا نقنين فاطمة داوعايا وحكي شيء قفك فاطمة أكيسين يوح منافقين تشبهه ألا يكون قادحا فيها مركز يقول فقاتل الله الرافضة رافضة الله لعنة الله دقاله وانتصف لأهل البيت منهم أهل البيت كان إنصاف يعني الله أقر صورة سداس وكلام عنه فإنهم محايا ألصقوا بهم آل بيت كي يحي كل جين من العيوب عيبها إيه والشين فالحمضة ما لا يخفى على ذي عين وحن كقرصوناني نقف إلا إن دقه ابن تيمية مركح حقو كيري فاطمة عمل كيذو يشبه عمل المنافقين آوينا وحوليه ورنك فاطمة أمان أقدقه وح شبههم منافقين تشبه هذا فكاسي أهل بيت كينا ماله أقدع عيو ليه. نعم. فاطمة بنت رسول بأهاني هذا الله حتى أقول وحكم ذا مركي أبو بكر أيضا دحلك النبي إلا أيضا وركبها إن النبي إنا دحل عينه أيوه اللي عملها يشبه عمل المنافقين عمل كيدو وحو إيجي هيبو اللي عمل كمنافقين خلاص فاطمة بنت الرسول هنا يعني بين أبور كان موان يعني كان نندأ وإيمانته مون كعب سنين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله إلهي بقول الله أنا إلهي كعبسه وهزيع الدين يقفك هدي أو كد يعني أو ضعيف كن نقض حشوتك أو كتجه وحيابها أنا كله أيو شيء هل كاس نمرك أرنت فاطمة يعني إذا أتاك أورانها. شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. سؤال السدحات وحاربنا إنا كوي دينو وذات وحوش شاقي وحوير إنه عصق الدفاعي معاوية علينا وحويري وحبا كمشيين معناها مركو سوق هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى وحويري مركو معاوية دفاعي أي وحكتهم طي أو إهانستي أو دولك كجيدي علي بن أبي طالب وحير أني يعني أسوق إسكهد لاي وحير أني واد دفاعي صدقك الواد دفاعي معاوية لكن كم حد قدبن وإحنا كمشيين علي wuxuu leeyahay mucaawiyan difaacaya markaasuu mucaawiya wuxuu ku difaacaya cali binu abi daalib inuu inta ihaaneeyo dhulka ku jiido oo mucaawiya difaaciisma wuxuu u baahan yahay cali binu abi daalib wax laga sheego anuu muxaadaraadkaas mucaawiya waa ku difaacay cali binu abi daalib waxba kama sheegin arrintaasi maxaa ka leedahay sheekhu jazaaka allah khayr soo dhawow بارك الله فيك أرنتاس وحي حسوسيني أولا horta wax la isku muqaaraneeyo ma ahan qofka iftiraaga iyo been abuurka meeshan ka gaaray iyo ibnu taymiya isaga laakiin wuxuu isku dhereeriyey ibnu taymiya rag waaweyn ayaa gaari waayey bishahaadati alculamaa maaha aniga iskama sheegayo wax kastoon aniga sheego in la iga daba tago kutubta aan kasoo naqlinaa la fiiriya diyaaran u ahay alxaafid ibnu kathiir oo aan wada naqaano markuu ka hadlayay kitaabkiisa albidaaya walnihaaya dhacdadii dhacday xawaadistii 705 sanata 75 dhacdooyinkii dhacay ayuu ka hadlayay dhacdo waxaa dhacday marka in laga dooday kitaabkiisa alwaasitiya markuu alcaqiida alwaasitiya qoray waa doodaa ka dhalatay waxaa la yidhi hay culummada ha loo keeno hala doodo ayaa la yidhi raggii badanaa ragga la doodayeen ashaaciray ahaayeen waxay soo hormariyeen ay soo qadimeen sheekh la yidhaha safiyudiin alhindiy raximahullah safiyudiin alhindi dabcan nin wuxuu ahaa cilmulkalaamka aad u yaqaan u ahaa waxay u soo hormariyeenna dabcan sidaasay ahayd ibnu kathiir markuu qiimeynayay safiyudiin ibnu taymiya waa doodeen ibnu taymiya marka waa ifxaamiyey safiyudiin alhindi markaasuu hadal yaab la yidhi oo waxa uu yidhi ibnu kathiir
saaqiyatuhu laatamat baxra. saaqiya waxaa la yidhahaa biyaha yarka ah, farta yarta ah, biyaha oo farta yariista ah ama yar ee lagu waraabsado, meelaha yaryarkaa lagu waraabiyo, kanaalka yarka ah waay saaqiyada. baxarna waa taqaanaa, waa bad weyn ama webi weyn waay. ninkan marka wuxuu ka dhigay marka ibnu kathiir tacbiirkiisa, waana nin culamaa dabcan, waxa uu yidhi saaqiyadii uu watay, waxyar uu watay safiyudiin, laatamad waxay marka dharbaaxday, oy dharbaax istiri baxran, bad. yani adoo haddii aad meel far yar oo biyo ah hadaad kusoo faruurto bad, yaa la riixaana, fartaas yarta ah la riixaa, badweynta iyo hirarkeeda iyo mawjadaheeda xagga u tuuraya. markaa kadib ayaa kamaaludiin azamalkani ayaa markaas haddana inuu la doodo loo doortay, waa la dooday. markii dambena caqiidadii waa la baaqi yeelay. ibnu kathiir xawaadistii sanadka 500 dhacday ka fiiri, waa taxqiiq ku sameey warkayga. haddana mar kale ayuu ibnu kathiir, waxaa jira nin la dhihi jiray albakri. bakriga marka dabcan mutasawif uu ahaa, nin suufi ah buu ahaa. kitaabkan alistigaatha ninka uu ku radinayo waa ibnu taymiya. ibnu kathiirna uu talkhiisiyey, talkhiisu kitaab alistigaatha ibnu kathiira talkhiisiyey, soo koobay. marka isagana ibnu kathiir xawaadistii dhacday 724 markuu sanadka ahaa. waxaan xawaadista u sheegaa waxay tahay dabcooyinka kala duwan, si aad si fudud ugu hesho sanadka raac, sanadka aad. dhacdooyinka marka 724 markuu ka hadlayo soo dhameeyey, dadkii dhintay buu ka hadlayey, bakrigaanuu keenay. marka waxbuu qoray marka ibnu taymiya uu ku radinayo, ibnu taymiya waa soo radiyey arrintaa. marka xaafid ibnu kathiir markuu ka hadlayay bakriga u tarjamaya ayaa waxa uu yidhi, wamaa mithaaluhu, ninkaa bakri tusaalihiisu ma aha ilaa mithaalu saaqiyatin daciifatin kadira laatamad baxran cadiiman saafiya. wax kalena tusaalihiisu ma ahanu yidhi, wuxuu la tusaale yahay saaqiyo weliba daciif ah buu yidhi, tan weliba calow oo wasaq ah, wasakhaysan, oo rabto inay meesha ka bixisay dharbaaxdo bad weyn oo saafi oo nadiif ah. badda weyn marka ibnu taymiya u jeedaa. ow ramlatin araadat zawaala jabalin, bacaad yar, caro yar oo rabto inay buur jiirto oo ay baabi'iso. yani haddii kuwaa marka ragga waaweyn sidaas la yiri, wadaadkan muxudiin maxaan leenahay marka, isaga maxaan leenahay? marka waxaa wanaagsan qofku inuu qadarkiisa aqoodo, uu joogo. haddii aad ibnu kathiir caynaysaan ood ka been abuuranaysaanna waa idinka innagu marka meeshay wax ku yaaleen waa sheegay. billahi tawfiiq. sheekhuna ilaahay ku barakeeyo. su-aasha afraad waxaan rabnay inaan ku weydiino, muxadisiinba ibnu taymiya waxay ku tuhmeen nasbi, ayay ku tuhmeen. arrintaasi bal ka waran. awalan qadiyada sidaas markay tahay, waa dhici kartaa inay dad iddicaa markay yidhaahdaan ibnu taymiya waa naasibi, haddii qof muxadisa uu dhaho, ma la qaadanaa warkiisaas? macnaha ma layska qaadanaa mase bayinaa la rabaa? bayinaa dabcan la rabaa. wixii uu naasibi ku noqday caddayn ayay u baahan tahay. wax marka la tuhmo ama tashayuc lagu tuhmo ama lagu tuhmo nasbi ama wax kale lagu tuhmo isagoo berina ka ah, ugumaba horeeyaba ibnu taymiya. laakiin waxaa la rabaa haddii uu qof wax ku tuhmo, calayhi albayina, isaga inuu bayina la imaado. haddii bayino ou la imaado waa laga jawaabi karaa, markaas ayaa laga jawaabi karaa. marka maalan imaamuna shaafici raximahullah, bayhaqi kitaabkiisa manaaqib ashaafici juska 2 safxada 71 ashcaarta alimaamu shaafici markuu ka hadlayey bisanadihiba wuxuu ku wariyey ilaa laga gaaro bisanadihi ila rabiic bni sulaymaan qaala anshadana shaaficiyu, shaafici baa noo tiriyey gabay
oo waxa uu yidhi in kaana rafdan xubu aali muxammadin falyashhad athaqalaani annii raafidiy. haddii aalu muxamed jacaylkooda shiico lagu noqonayo, raafido lagu noqonayo, jinni iyo insi markhaati ha ka noqdaan annii raafidiyo. marka meeshaas waxaa ka muuqata dad baa eedaynayo, waxay ku eedaynayaan jacaylka oo aalu beytka u qabo ayay shiicadii xijiyeen. marka alimaamu shaaficina shiici ma ahayn, oo iyaga markaas wuxuu leeyahay war haddaad idinku sidaan raafidinimo u taqaanaan waaba ahayba marka maahan macnaheedu inuu raafido yahay ma aha. shaafici waa la yaqaan caqiidadiisa. raafidada mararka qaar waa soo qabsadaan beytkan iyo waxaas, laakiin waxba uma taraya. inkastoo sanadka laftiisana culamada qaar ay wax ka sheegaan, haddana dad badan baa wariyaan oo sanadkiibaa marka alimaamu albayhaqi sanadka uu ku warinayo waliba maxamed ibnu maxamed ibn alashcas ayaa wax ku jiraa. waxaan u sheegaynaa waxay tahay ahlulxadiidka yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim, waa tilmaamayna. mar kale bisanadihi haddana wuxuu ku wariyey alimaamu shaafici inuu yidhi yani dadkan inuu yani ka taagnaayey ay dhibayeen dadka buu tilmaamayo. wuxuu yidhi idaa naxnu fadalnaa caliyan fainana rawaafidu biاtafdiili cinda dawi اljahli wafadlu abi bakrin ida maa dakartuhu rumiitu binasbin cinda dikrii lilfadli falaa ziltu daa rafdin wanasbin kilaahumaa bixubayhimaa xataa uwasada fi ramli. waxa uu yidhi haddaan cali fadilno fainanaa rawaafidatihinaa nala dhahaa, macnaha raafidaan nahay annaga, waa sida nala dhahayo tafdiilkaa dartiis ayaana dhahayan cinda dawiljahli buu yidhi. wafadlu abi bakrin idaa maa dakartuhu, abubakar fadligiisa markaan sheegana rumiitu binasbin, nasbi baa la igu tuuraa, naasibi waayaa la dhahaa. markaasuu yidhi falaa ziltu daa rafdin wa nasbin kilaahumaa, ka zuuli maayuu yidhi inaan ku rafdi u saaxiiba nasbi u saaxiiba labaduba aan ahay, bixubayhimaa bisababi xubayhimaa jacaylkooda dartood, xataa uwasada fi ramli ilaa carada barkin laygaga dhigo ilaa aan ka dhinto. calina waa jeclaana, abubakar iyo cumar iyona waa jeclaana. haddii marka shaafici sidan la dhahayay qofka waxbaa la yiri waxba ma noqonayso. sidoo kale alimaam abu nucaym alfadl bnu dukayn shaykhu limaam albukhaari isaga laftiisa tashayuca lagu sheegi jiray mana ahayn. sidoo kale alimaamu albukhaari laftiisa mas'alo uu kala bixiyey khalqu afcaali lcibaadka oo aad u kala bixiyey ayaa waxaa looga dhigay inuu leeyahay lafdii bilqur'aani makhluuq oo uu ka wada malfuudka shayga lagu dhawaaqayo qur'aanka makhluuq ou qabaabaa suuqa loo geliyey alimaam albukhaari. waliba dad waaweyn oo ahlufadli oo isaga wax ka wariyo ayay xataa ku kala ay wax dhex mareen. xataa maxamed ibnu yaxya duhli macruuf waay qisadooda. waxaan leenahay bukhaari muxadisiinta qaar ah waxay ku sheegeen sidaas inuu qabo, yani ma ku sugan tahay imaamulbukhaari? kuma sugna sidaas, warkiisu waa cad yahay. kitaab dhan oo caqiidada ka alifay khalqu afcaali lcibaad. wahaakada haddaan tiri maago xataa wadaadkan rag aad agtiisa uga waaweyn ayaa maxkamad lasoo taagay, weliba iska dhaaf isaga ibnu taymiya nasbi baa lagu ta weliba macnaha istitaabo la weydiiyey yaan ognoon haynaa. ma raba laakiin inaan ku dhex waxyaabahaas hadda aan sii galo oo maqaamku ma keenayo dabcan. khulaasada marka waxay tahay ibnu taymiya haddii ay wax kasta oo dad culamaa uljarxi watacdiil wax walba ay sheegaan lama qaato. alimaam alciraaqi alxaafid alciraaqi alfiyadiisa wuxuu ku yidhi warubamaa rudda kalaamu ljaarixi kannasaa'iyi fi axmed ibni saalixi. mararka qaar qof imaam abaa warkiisa la radina liamrin ma. haddaba haddii ay soo qaadanayaan hadalka alxaafid ibnu xajar raximahullah uu kitaabkiisa lisaanulmiisaanka uu ku sheegay tarjamada ibnu mutahar marka uu u tarjamayey ziyaadaadka isaga uu keenay waayo dabcan
yuusuf bnu lxasan bn lmutahar alxiliy markuu u tarjamayey ayaa waxa uu yidhi hadalkan ibnu xajar ayaa dhahayo walazima min mubaalagatihi litowhiini kalaami الraafidiyi اlifdaau axyaana ilaa tanqiisi caliyin waxaa ka laasimay ereyga u fiirso waxaa ka laasimay oo ka dhashay mubaalagadii iyo ku-xeel dheeraantii uu ku xeel dheeraaday ibnu teymiya daciifinta hadalka raafidiga ibnu mudahar waaye waxaa ka laasimay buu yihi alifdaau axyaanan marmar nuqsaamintii cali gaaritaankeeda ayaa mararka qaar ka dhalanayay ayuu yidhi wa haadihi اtarjamatu laa taxtamilu iidaaxa dalika wa ibraaza amhilatih tarjamadanna ma qaadanayso ma ixtimaalayso oo ma xambaarayso arintaa caddaynteeda iyo amhiladeeda soo muujinteeda. hadalkaas dabcan dad badan oo acdaa ibnu teymiya qabsado ay shiicada kamid yihiin ay ka mid yihiin axbaashta oo wadaadkan hadda kelmaddan isaga ka hadlay oo u arko dad wax laga qaadan karo lala fariisan karo oo uu soomaalidii ku leeyahay haddaad wax la qabsan kartaan wax la qabsada. saxaabada inay caayaanna waa sheega markaas lafteeda waa ogyahay uu sidaa dhahayo. cadaawada marka ibnu teymiya isu keenaysa dabcan sidoo kale khumaari iyo rag iyo kowthari iyo xasan saqaaf oo aada isagaba asxaabta u caayey ayaa wararkan qabsaday soo ibraasiyey. marar horena waan yacni way sheegi jireen oo wax hadda cusub ma aha. haddaba marka saddexda wej oo hadalkan ku jirto ama aan ka leenahay ayaa waxa uu yahay awalan wejka koowaad laasimulkalaam uu sheegay hadalkiisa wax ka laasimayuu sheegay. laasimulkalaamkuna qofka madhab ma looga dhigi karo hadduusan isagu iltisaamin. taas waa qodob. qodobka labaadna waxa uu yahay laasimulkalaam hadalkiisa qofka wax ka laasimayo iyo haddayba isdiidan yihiin nasu kalaamihi hadalkiisa naska ah oo aan wax kale ixtimaalaynin hadday isdiidan yihiin insaafka iyo cadaaladdu waxa ay tahay hadalkiisa naska ah yaa madhab looga dhigaa qofka. waanan keennay oo kitaabka minhaaju sunnaha laftiisa waa kaga hadalnay. sidoo kale alcaqiida alwaasitiya oo uu u alifay caqiidat ahli sunna waljamaaca inay tahayna nawaasibtu inay qaldan yihiin oo uu ka beri yahay ayuu ku caddeeyey. halkan laakiin kitaabkan dabcan wuxuu la doodaa raafidi. qofkana marka uu jidaal iyo dood uu sameynayo waxyaabaha qaarkood ou la imaanayo ama uu qofka kale ku laasiminayo madhab loogama dhigo. abubakar albaaqilaani aan soo marnay oo maryam iyo caaisha ka hadlayay waxyaabahan oo dhanna waxay ku dhisan yihiin sidaa haddaad dhahdaan shiicoy wax allaale wixii aad oo khayr ah ood cali ku sheegtaan waxa uu uga muuqasho badan yahay abubakar iyo cumar oo aada idinku lacnadaysaan haddaa shiica tihiin. haddii abubakar iyo cumar masaa'il bay diinka ku khilaafeen aada leedihiin dabcan ijtihaad ahaanay ugu khilaafeen nas inay arki waayaan aad dhici karto. meelo wuxuu sheegaa calina ou naska ku khilaafay oo ijtihaadkiisu ou keenay inuu naska ou khilaafo. isaga dabcan marka khilaaf isma lahayn. 12 meel marka uu sheega marka macnaheedu waxay tahay cali baa kaga badan inta aada abubakar iyo ku sheegaysaan ixtimaalaadka khada'a ah cali baa uga badan. warkaasna marka cali dhulku jiidid uma aha. wejkaasna waa wejka dabcan labaad oo naskiisii iyo caqiidadiisii uu ka hadlaayo. haddii nawaasibtii ou dawaa'ifta bidcada ku tiriyo khawaarijtii iyo muctasiladii inay yihiin ou sheegay hal xaraf oo uu nawaasib ku ammaanayna ma hayna naga oo caqiidada nawaasibtaa fiican uu leeyahay. laakiin nawaasibta iyo rawaafidda marka la fiiriyo raafidada nifaaq iyo been badan ayuu sheegaa shaykhulislaam. muqaaranaduna waa nisbi dabcan nisbi ayay noqonaysaa. tan saddexaad waxa ay tahay arrinkan marka laftiisa in laasimkan laftiisu
وابن حجر العسقلاني وحو كفهمي واي نص معها عركة كسو دقى سماذا كيمد معها وحق الله كيمد علماء كلاكو خلافصا بل شيخ الإسلام ابن تيمية وحو عدي آل بيتك احترام كودا يسيدا أن واسط يضبا ككيني دونا إن شاء الله تعالى يوم غدير خم وصيدي الدردارا كي النبي إن لغو تاقناذو إني دين تهي حق تهي أيو كهضلي intaasoo wejba marka saddexdaa wejba hadalkan horta waa yani waa ka leenahay sidaas oo ay tahay haddana ibnu xajar raximahullah ma dhihin ibnu taymiya waa naasibi ma dhihin waxaa ka laasimayo oo warkiisa ka dhalan karo sidaa iyo sidaas ayuu ahaa naasibi waaye ma ahan warkan ta kale waxaa la dhihi karaa wadaadkan dam isagaaba been abuurtay ibnu xajarba hadduu sidan yidhi wadaadkan iyo ibnu xajar farqiga u dhexeeya ayaa wuxuu yahay ibnu xajar cilmiga iyo xifdiga ibnu taymiya wuu ka hadlay isla meeshaan lafteeda sadarada ka horeeya wuu uga hadlay durarulkaaminahana sidoo kale wuu uga hadlay sidoo kale taqriidka kitaabka aradulwaafirka taqriidkiisa uu sameeyey sida uu sakhaawi soo guuriyey kitaabkiisa aljawaahir wadurar ibnu taymiya diin wanaagsan uu ku sheegay inuu diin wanaagsanaa mataanatu diin iyo khayr ayuu ku sheegay wax kale haddii uunan samayn lahayn buu yidhi ilaa in ibnulqayim ou isaga kasoo takharujay oo kasoo baxay intaa ma ahne wax kale hadduunan samayn lahayn manqabo waa ugu filnaa lahayduu tilmaamay wadaadkanna inuu sheekh yidhaahda xataa ayuu iska ilaalinaa shiica yani nimankan harariyiinta ama kuwan cabdalla alxabashi raggiisana oo muslimkana takfiiriyo la ogyahay saxaabadana waxaa aan sheegnay ka dhaho ayay bahwadaagaan oo uu leeyahay la fariista wax la wadaaga laakiin meelahaasna iska ilaaliya waxa uu marka ibnu taymiye ugu dul qaadan waayey waxa ay tahay waa la garan karaa nimanka harariyiinta waxaan anugu soomaalida u soo jeedinaya soomaalida lama rabo inta la baraqbaraqeeyo ma garat in la noqdo wixii muxuu ahaa dadku ay oran jireen dameeri dhaan raacday waa inaad hadaf iyo manhaj leedahay inaad manhajka intaasi marta inta ka leexato wadaadda shiikhoodii un keliya ku raacay yaa war intee shiikh bay ka leexdeen aad adugu iska qaadata si fudud nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa takuunuu imaca ha ahaanina ha yeeshaalaha noqonina xadiis tirmidi warinaya waxay taquuluuna in axsana annaasu axsannaa wa in dalamuu dalamnaa dadku hadday wanaag sameeyaan waa samaynaynaa hadday dulmiya waxaan ficnayn ku dhacaan annaguna waa ku dhacayna waxaa la rabaa inaa hadaf leedihiin nimankan shaaficiye waa wada tihiin muxuu ahaa dariiqo waa wada tihiin ashaacirana waa wada tihiin waxaan gaarkaayo dhabihi la yaqaana ay uga leexdeen hala wadaagin hana ka dhegaysanin haddaad aqoon diiniya leedihiin oo munaaqashada samayn ka dhaan la sameeyo alaqal waxaad tidhaahdaan muctamaraadka hadda ay bilaabeen anuu hadda ka hor muctamarkii dhowaa waxa ka horreeya qabteen warkama hayo kaasaan maqashiisnaa kana waa ku xigay hadday keenayaan kutubaha caadiga ah مثلا هذي كتب أحاديث قاركون إذا أخرها هي مذهب الشافعية هذي إذا أخرها هي عقيدة أشاعرة هذي إذا أخرها هي وحياة بدن بعد ولاكتها أهلا وسهلا هذا أرينا كلا قيم قاضي ليس أو إذا كده هي مواليدنا هذي إيمانها هي ما قدر إذا الصومالي ذا محوا قاركون واحترم ولا صعنا أو ركحة المساجد يسيء إن مركز سراس هوشة حدث كايدك صعته هدي محوها أي نقوم ويدو ونمان كان هرري أنت معناه هذا أي نقطة فكر كان أنه أن قبله أما تكفي واحد كسر قال يسيها النقطة أما الصحابة يعني وهيدارين إن اللي أو كلا يدعني جها النقطة وحن إذا الله إياكم ثم إياكم ثم إياكم والله سبحانه وتعالى مركب meeshaas weli waxaan rabaa inaan geliyo ibnu taymiya inuu naasibi ahayn caqiidadiisa waasidiyada dadkana aan u akrinoon dhigno dadkana u dhigno laguna yani ouna difaacay weliba caqiidadaas muxuu ku yiri fiiri wuxuu dhahayaa aakhirka caqiidadaas wayuxibuuna ahla beyti rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ahlu sunnaha waxay jecel yihiin buu yidhi qoyska nebiga ahlu beytka nebiga wayatawallownahu waa ay muwaalaadiisiiyaan waa ka weli dhigtaan yani wayaxfaduuna fiihim waxay iyaga dartood
waxay u ilaaliyaan, waxay xifdiyaan oo ilaaliyaan wasiyata rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, xayثu qaala yowma khadiiri khum, maalintii khadiiri khum oo xajka uu ka soo laabtay, meel cagaaran oo biyo leh ayuu degay. waa waxa hadda shiicada maalintaas ayagu waxay ka dhigtaan ciid, waa ogtihiin dabcan. yowmkaas oo khadiiri khum wasiyadii uu saxaabada kula dardaarmay ayay ilaalinayaan. udakirukum allaha fii ahli beyti, udakirukum allaha fii ahli beyti, taasay ilaalinayaan yiri. waxaa kaloo sheegay xadiidkii cabaas qisadiisii, waladii nafsii biyadihi laa yu'minuuna xataa yuxibuukum lilaahi waliqaraabatii, ilaaha nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye ma rumaynayaan ilaa ay idin jeclaadaan idinka ahlu beytka ah. maxay idinku jeclaanayeen? lilaahi waliqaraabatii, ilaahay dartiis iyo aniga qaraabada aad ila tihiin darteed. waa ka ahlu beytka nebiga waa weynaynayaan ahlu sunnaha, saas u sheegaa sheekha. aawo marka nawaasib maya caqiidadooda waxaas, saas nawaasibta maya sidaa ayagu qabaan. sheekhu kitaabkiisiibauba sidaan ku leeyahay, hebelaa yiri maxaan ka rabnaa marka? taas waa iyada qodob. waxaa kaluu yidhi wayatabara'uuna, fiiri, waa waday markaasuu yidhi wayatabara'uuna, waxay ka beri noqonayaan min dariiqati rawaafid, shiicada dariiqadooda, aladiina yubgiduuna asaxaaba, kuwaasoo saxaabada u caraysan, u caroonayaan, wayasubuunahum caynayaan. wa dariiqati nawaasib, waxay ka beri noqonayaan uu yidhi nawaasibta dariiqooda, aladiina yu'duuna ahla albeyt, kuwaasoo ahlu beytka dhibo biqowlin aw camalin ku dhibo, qowl ama camal ku dhibo. labadaa dariiqaba way ka beri noqonayaan uu leeyahay. caqiidadii uu qoray waaye isaga, uu dadkay u tilmaamay caqiidadantii lagu badbaadayey waaye, uu dhahayey waatan sidanaa ku taal. laakiin markii horeba sida aan sheegay, marka uu sheekhu raafido la doodayo, mararka qaar iftiraadka jadaliga ah wuxuu keenaa wax qofka uu u malay karo inuu cali hoos ugu dhigayo, laakiin meesha ma taal cali hoos u dhigid, cali ma taalno. ee laba qolow tartansiina, sida daayaan soo marayn oo kale. ama fardan iftiraad ahaan buu wuxuu leeyahay wax allaale wixii aad cali ka dhahdaan ee wanaag ah waxa uga owleysan uu leeyahay abubakar iyo cumar. wax allaale wixii aad abubakar, cumar, cuthmaan aad qalad uga dhigtaan oo ijtihaad ku dhacana, waxaa ka badan waxyaabaha cali uu ku ijtihaaday ayaa ka khatarsan marka loo fiiriyo waxyaabaha ay ku ijtihaadeen, sidaas alkhulafaa athalaatha. arrintaa marka cali miyaa hoos loogu dhigay? waa maya. waa qadiya ijtihaadiya oo mar walba ugu yaraan hal ajar uu ku leeyahay qofka mujtahidka ah. marka arrimaha noocaas diinta la keena, halkan laga soo qabto, halkan laga soo qabto, ee la yidhaha naasibi waaye, warkan cadna marka lays hortaago waa dhibaato. meesha iyadana marka waxaan ka dhihi lahaa arrintaa waxaan ka dhihi lahaa sidaas. sheekhuna ilaahay ku barakay, jazaaka allah khayr, baaraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk. waxaan rabnay su-aashaan inaan kusoo gebgabayno been abuurka intaan la eg maxaa sabab u ah, muxuu ku yeelan karaa qofka sameeyey? shakara allahu sacyakum. awalan been abuurka noocan qofka samaynayo waa arrin aad khatar u ah, waayo mu'miniinta in laga been abuurto dembi aad u weyn waayo. waladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa ihman mubiina. waxay xambaarteen buu leeyahy dadka dhibaayo yani nimanka mu'miniinta iyo haweenka mu'minaadka ah wax aynan kasbanin ku dhibaayo, waxay xambaarteen been abuur iyo dembi aad u weyn. allah weyn ayaa sidaa dhahay. taas waa mas'alo. maxaa keeni karo? waxaa keeni karo waxay tahay dacfu tadayunkii inuu daciifo, oo qofkii dhimashadii iyo aakhiradiiba hortiisa inuusan soo dhigaynin, nusba cayneyhi inuusan ka yeelaynin, ee khalaas qofkii ou nacaba inuu bannaysto inuu ka been sheegi karo, inuu cayn karo, inuu dili karo xataa inuu bannaysto ayuu gaarayaa qofka haddii dacfu tadayun uu ku dhaco.
xishood darri markay ku dhacdo idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta xadiidkii nebiga saasuu ahaa sala allahu calayhi wasalam qofkii marka aan xishoodka ka tago waxyaabo foolxunuu sameeyaa midda kale waxa ay tahay maxaa ka dhalan karo qofka sidan u been abuurto isaga maxay saamayn oy ku yeelan kartaa dabcan qofkan fii qeyd ilxayaha ayuu ku jiraa tooba u furan horta inuu toobad keeno arrimaha noocan oo kale ilaahay uga cabsado ka toobad keeno say u wanaagsan tahay waxba annaga younan noogu danaynin wax isaga u fiican ko ta kale waxay ku keenaya waxay tahay in aan la rumaysanin ninkan hadalladiisa kale waayo haddii been abuurka noocan kitaabkii uu ka sheegay sidaan warka ku yaallo iyo waxa uu sheegay sidan ay kale yihiin dadka ku dagan ama ku siran ee dhahaya almuxaqiq alkabiir u arko waxay u baahan tahay inay dib isugu laabtaan haddii uu muxaqiq yahay wuxuu soo hubi lahay arrimahan aniga marka sida iisoo degdegaysa waxay tahay dad shiico ah ama shiicada ku mabda ah sida axbaashtoo kale iyo ayuu wadaadkan waxyaabo ay maqaalaad ay meelaha ku qorqoreen inuu arkay iska rumaystay xataa uunan dib u feerinin isaga laftiisa waa sida aan isleeyahay macnaha marka aan dhanniga wanaajiyo marka dhanniga aan wanaajiyo arrintan marka waxay ku keenay isaga inaan wararkiisa uu sheego oo dhan in layska hubiyo ugu yaraan in layska hubiyo haddii kalena in meel layska dhigo inta la duuduubo meel la dhigo leanna waxaa lagu tijaabiyey iftiraac inaan sidaa dhaho marka waxaa igu kallifaa maqaamka qofka haddii lagu tijaabiyo waxaanoo kalena culamaau ulxadiid iyo culimada islaamka qofka sidan oo kale ah qof majruux ay ka dhigaan waxaanoo kale majruuxa lagu noqdaa marka hadda ninkii qofkii uu sidan muxaqiq ugu yahay de waxaanu taxqiiq ma ahanoo marka mayaadiin albaxth marka layskugu yimaado madaariju riyaaxay raacaysaa waa ujeedaan haddaba nacam dadka iyaguna xaqdoonka ah waxaan aan akrinaynana inay fiiriyaan wuxuu isagu sheegayna inay fiiriyaan taas annaga waa rabnaa waana midda aan marka ugu yeerayna dadka waxyaabo badan oo kalena runtii jira oo sheekhan uu ka hadlay wadaadkan uu ka hadlo oo waaqican oo xataa ka been sheegayo middii ugu dambeysay waxay ahayd uu leeyahay sheekh cumar faaruuq raximahullah markii uu dhintay koox hiblaayo wahaabiyada wuxuu leeyahay nin ayaga ka midoo u tacsiyeeyey ma jira xataa hal nin oo koox kale ah keliya unbaa ka tacsiyeeyey ayuu yidhi wa fii nafsi alwaqti waxaa duuban oo sajilan wadaadadaa uu sheegayo wahaabiyada uu leeyahay iyagoo ka tacsiyeynayo laga waraystay ayaa duuban marka been abuurku miska soconaa isaga nacam waaqici aan joognay saa hadduu uga been abuuran culimo kaleo iyaguna dhinteenoo beri dhoweyd uu ka hadlayay culummadii marka dhimatayna qaarkood waxyaabo uu ka sheegayay isaga anu ma garan kara sida loo rumaysan kara warkaas sidee loo rumaysanaa arrintan sheekh cumar faaruuqu sidan ka yiri tan hadda ibnu taymiya waa kana faatimo cali buu dhulka ku jiiday xataa isdilaax ma ahan dhulkuu ku jiiday cilmi faatima radiallahu canha buu saa yiri waa wax uusan dhihin shaksiga noocan oo kale waxa uu sheegayo macno badan inaan loo yeelin saasaan dhihi lahaa hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin waaalihi waasxaabihi إسلامنا تجمعنا تسأل خيول العز حين تسابقات ترنو السلام فتوجت أبطال